munaasabad ballaaran oo lagu wanqalay degmada cusub ee Gumburaha Banka ee gobolka Hawd ayaa maanta lagu qabtay isla degmadaasi Gumburaha Banka oo ka tirsan gobolka Hawd xafladan oo ahayd misi ballaaran loo soo agaasimay isla markaasina lagu qabtay madal aad u qurux badan oo loo asteeyay xafladda furitaanka wanqasha degmadaasi cusub ee Gumburaha Banka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada ugu miisaanka culus xukuumadda Soomaaliland barasaabada gobolada Hawd iyo Togdheer maayirada Hargeysa iyo Balligubadle xogayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ka kala socotay saddexda xisbi qaran xildhibaano salaadiin cuqaal madax dhaqameed culimo awdiin qurbajoog ganacsato aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan madashan oo ahayd madal bilan oo boqoran oo meeqaamkeedu aad u sareeya ayaa mas'uuliyiintii kala duwanaa ee madashaasi ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen degmada cusub ee Gumburaha Banka isla markaas waxa ay dhamaantood Ilaahay ka rajeeyeen in ay degmadaasi cusub ee Gumburaha Banku noqoto mid horumar ballaaran ku soo kordhisa guud ahaanba qaranka Soomaaliland أجل ودنبيه وقبل كحانتي سها لبنادي قبل ودنبيه إنه صار عباد مدة أنت حلك حتى هذا حلك أنت حتى وحي لا ترتا إنه لا ترتا شعب كذي لا ترتا مامل وحي لا ترتا مامل كذي لا ترتا لو مامل عنك قبلها ولا شغالنا تكون سوكر ويا واحد أفراد وارجع يقول تونتي ويا رنتي meeshan ama madashan aynu joognaa taariikha gaar ah bay leedahay taariikhaha gaarka kullay waxaan jecelahay dad badan oo ka hadli doona way jiraan laakiin in ay noqdaan taariikho la xuso taariikho la xurmeeyo taariikho la ilaaliyo taariikho dhaqankeedii iyo dariiqeedii la mariyay inay noqdaan baan rajaynayaa insha Allah ta'ala jumladda Soomaaliland Ahmed Mohamed Silayo يا حكومة ديسان وين صاروا وين يا دي أدركم معنا شرف بينوتها إيمانتا إن هالك نقل سوق قمكشان الشركة نمانتا سدح أبوعن بولاي هاي وعوية مهدناق عنو مهدناق إنه حكومة دا وقانكوية هاي أحمد محمد سلايو آرم إيوه وعن كلانو مهدناق إنه وزيردي ددوينه عقاشي كلا سو شقيي إن Gumburu أي مانتا نقدان دقمو وحكله جرته أو طلباده وحفلة دعوة. أيكم عندنا مدحونا قرنك أحمد محمد سيرايو إيه مقعبين تقول كبرها وحوليني مدحون استغفر خير Gumbruhu waa degmada cusub oo magacawday deegaanka degmada ruhantii sida uu madaxweynuhu magacaabay waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka soo baxaan horumarkeedii iyo waxqabadkeedii iyo hawlihii ay degmadu u baahnayd oo dhan gaari adagoo laan kugu salano waan ugu ballan qaadnay inaan anagu degmada aan siino degmada Allahu ta'ala dhismaha aqalkana qayb baan ka qaadan doonaa hadii Ilaahay raado dhismaha aqalka degmada wax kasta oo looga baahdo waa degmadii noogu xigtay ee xadka nala lahayd waan la qabanaynaa marka kama maqnaan karo soo magacaabisteeda iyo hawsheedana warqadii ugu horeysay cidii ka qorteen iyo gudoomiyaha gobolka saaxiibka Ibrahim oo aad iyo aad ugu bogaadinayo qayb baan ku lahayn Suudaan Barre qayb ku lahaa dad fara badan baa u soo halgamay degmadan si muddo noqon lahayd muddo soo jiitabaysay waxaan aad iyo aad mar iyo laba iyo saddexba ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay magacaabay degmada Gumburaha ku tala galay oo aanu qorsheynay degmada maxaan ku raahday Gumburaha inaanu maanta ku wareejino gudoomiyaha guddiga beesha Dr. Maxamed Warsame lacag tiradeedu ay dhan tahay $10,000 dadweynaha hortooda ku wareejinaya furaha gaariga iyo buuggii gaariga iyo gaariga halkan taagan gudoomiyaha marka waa horumar yimi baa weeye horumarkana waa mutaysatan beeshanayo anigana waxa weeye
5 kun oo xalintii aan salaxaysiin leeg ma bixinaya وانا ندو عينيه وعن الله إلهي كدو دقمو بركيسان ودادك إذن وحكسو كردسة قرنك جمهورية الصومالي لأنه وحكسو كردسة ما أنت بل قبلو ما وقرا ما هالسيدان وكور قبنو قنبرو واحد هدوك اللي قد قال قلي قرنك جمهورية الصومالي لأنه حرية وإنويهين إن قنبرو ين لطيئيه قولك هودنا دمانهان إن لطيئيه ومديه وحن كدر لها صوماليا أنو شاركنا هاي دلك صوماليا أنو شاركنا هاي أرينا أنا الدنيا اللي أرد أيها كدعضي أرينتا سوحي لها هاي وهي واحد عضي من دنبيله ومحكمة هاي حكومتي oo isagu qirtay oo sugaya xukunka sugaya ayaa geeriyooday maxamed cali samatar madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ee ciidamada qalabka gaashaandhigga haystay ee sheegay inuu isagu amray baabiinta magaalada Hargeysa ee kumanaanka qof ay ku dhinteen maanta uu dhintay oo naga hooseeyaa waxba ku tirtirsan mayno waxweeye ilaahay naabuuray xaakimkii ahaa ayuu hortagaya isaga ayaaba abaalkiisa marin doona laakiin mid baan leeyahay dowladda Soomaaliya inay sheegatay sida indhalaanta inoo sheegata ee maanta samaysay inay muunayso ama inay qiimayso ama inay qadariso min gacan ku dhiigla oo xasuuq maxkamadu ku xukuntay oo ilaa madaxweyne ilaa dawlad ilaa madax dhaqameed aanay u kala hadhin waxaan leeyahay waxaad jamhuuriyadda Soomaaliland dawladeeda xaakimka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madax garooyinka ka yahay iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel degan yahay بداية تبدأ وحاتسين يلبكين دي حسبها هاي وحياي إنكستان سيتجوه إسكان كتاب إنكستان مرمن بيالتان ما أنت وحاتسين إن آتيين لمن محاكو هاي الدالمين وهو محاكو حصوغة وهو قردغة وأن حريص بني آذان هون taasuna waxay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeynaysaa waa xaqiijin u tahay kii wadaha waxba jiray mid kala toonna inaanay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland caalamkana u sheegaysaa dadka noocaas iyo dawladda noocaas inaanay wax la qabsan karaan jirin waxaan marka hore mahad u celinayaa madaxweynaheena gartay maamul dejinta ee meelihii ku haboonaa in runtii dekol hadii la arko in wasiir dawlaha biyaha waxa xaqiiqa inay sugaystaan ballanqaadkii biyaha annaga taayadan ma aha maanta ballanqaad annaga taayadu waa dhagax dhig ma hadda labaadna waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud oo ah markii labaad ee uu magacaabo gumburaha wax marka hore waxa ahayd markuu ahaa taliyaha in hogaamiyay SNM oo uu magacaabay xaruntii taakulaynta halganka iyo xaruntii aaga marka labadaas oo isku jiro uu magacaabay iyo imika uu degmo u magacaabay waxa jiray laba wasiir oo inay goobta joogaan ahay hase yeeshee hawlo ku soo kordhay awgeed oo wasiirka caafimaadka uu iman waayay wasiirka caafimaadka Salmaan Xagla Toosiye oo ceergaaba jooga iyo wasiir Samson Cabdi Aad labadaba aanay soo wakiisheen waxaan ballanqaadkooda qadimayaa wasiir Samson waxay ballan qaaday oo ay halkii ka ballan qaaday أنا ما قدرت أقول هذا يا حرمتي عشورها تبي وزارة المالية الجمرة وزارة المالية أنا بس في هاي اللي بدوني سليمان دكتور سليمان حقنا توصينا وتبلغات كي صفر إحنا ما كنا نسوي شيء فلان بنقول سؤال علي إن أبلغ علي حرون عاصمات وأدق مدى الجمرة لا يبص waxa aan ilaahay idin ka rajaynayaa inay noqoto degma barwaaqo iyo baraara ilaahay kusmo
inay noqoto tii martida iyo maatadaba daadiisa inay noqoto mid aan qabiil ku dhisnaan ee qarannimo ku dhisnaata waxay mulkideen degmanimadii baa mulkideen waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay in degmad laga dhigo waxaan leeyahay gumburaha banka magaca haddaan firisto gumburaha qofkii garanaya afarta ugu dambeeya raha raacaya gumburaha rahay noqonaysaa barwaaqo waa meelaha ugu barkada badan waddanka haddaan la socotaan kalmo jaani dhulka waxa ahaan jiray waxa ka xiga bankiyo barwaaqo ah xagga dambena hawdka waxa la waxa geel waddanka yimaada isugu yimaadaan aniga waxa ii dheer ninka saani sheegay degmadani 1974 ilaa 75 macallin baan ka ahaa gebiga dadka ma sheego waxaan ahaa wixii aan iskuul gelin xilliga olihii macallin markaa magaalada iyo gobolkayga lagu qabtay wanqalka degmada gumburaha oo runtii madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Silaayo uu magacaabay una gartay oo inay ku habboon tahay degmo ahaan inaanay dugsiga dhexe marka ka baxaan ana meel kala tagin ee dugsiga dhexe sare loo helo dugsiga dhexena loo weyneeyo macallimiin wixii aan heli karaynana aanu kordhino ayaan ka howlgalanaa haddii alla yidhaa waxaan dhammaan marka bulshada ugu kaloon u hambalyaynayaa bulshada tan iyo degmada tan magacaa lagu maamusay iyo xilkaan heerkaa la siiyey munaasabadda loogu qabtay maxamed Shiciiro Axmed iyo Axmed Maxamed Awaana TV qaranka Soomaaliland degmada cusub ee gumburaha banka